كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada barnaamijkayga maanta wuxuu gaar u yahay beesha abgaal haddii aadan u dhalan beesha abgaal waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad ii sheer garayso si aad u gaarsiiso saaxiibada ku jira facebookkaaga iyo whatsappkaaga ee u dhashay beesha abgaal arrin xasaasi ah ayaan rabaa inaan ka hadlo wax badan baan aniga ka aamusnaa arrinta aan doonayo maanta inaan ka hadlo waa arrin u dhaxaysa dad wada dhashay laakiin ay dhibaata dhex taalo markastana anigu dhaqankayga cid walbo laga gardaran yahay ayaan la sabtaa anigoo tusa xaqa waxa uu yahay labada dhinac cabdalla caroone ma dulmilowba mase waa dulmidiid arrintaasaan doonayaa inaan maanta shaaca ka qaado dagaal waxaa jira u dhexeeyey beeleed dad wada dhasho walaalo ah oo la kala yidhaahdo agooyar iyo cabdalla caroone nabad ayaa la dhex dhigay ugu dambayn siyaasiyiin iyo nabaddoonno madaxweyne shariif sheekh axmed ka mid yahay ayaa cabdalla caroone iyo agooyar dhex galay nabadaa loogu baaqay cabdalla caroone nabaddii way qaateen ayagoo nabadii qaatay ayaa intay agooyar dhinac mareen nabaddii iyo gogoshii madaxweyne shariif iyo nabaddoonnada ay wadeen ayay cabdalla caroone lamaano markaa isguursaday ayay gurigooda intay ugu galeen ayay ku tugteen gabadhii iyo wiilkii kuma ekaan intaase waxay haddana si toosa u togteen nabadoon beesha cabdalla caroone ka soo jeeda intaas markay dhacday cid ka daba timaada arrintaa oo ka socota dhanka agooyar ayaa la waayay cabdalla caroone markay arkeen nabaddii inay burburtay markay arkeen cid kale oo arrintan ugubka ah ee cusub iyo dilkan ku soo baxaysa go-aan ayay qaateen go-aankaasina in ay ayagu aargutaan weeraray qaadeen waxa ay ka aargoosteen beesha agooyar 4 dhimasho ah iyo 7 dhaawaca ayaa la ii sheegay markay aargoosteen cabdalla caroone qayladhaana afkala furtay waa wareey dad shacabaa la laayay dad baa lagu xadgudbay cabdalla caroone dulmiyo wadaa ilaahay aan ka baqno abgaalo runta in la idiin sheegaa la idinkala gambarayay laakiin aniga xaqan ku taaganahay wixii xaqan waan sheegayaa cabdalla caroone dulmilow maahane waa dulmidiid ha u malaynin in aniga ka dhashay labada beelood waa walaalahay kama dhalan laakiin runtan idiin sheegaya cabdalla caroone dulmilow ma ah ee waa dulmidiid laakiin waxaa la ysku galabsanayaa oo maanta aan u jeedaa in nabadoonnadii abgaal ay cabdalla caroone markay dhibaato loo geysto ay aamusayaan ay taleefanada dansanayaan markay cabdalla caroone aargoostaanna taleefanadiyaa la shidanaya waa wareey xasuuqaa dhacay culimaa la laayay dad baa lagu xadgudbay walaalayaalow miyaynan dadku isku qiimo ahayn nabadoonka cabdalla caroone dilkiisa ma ka qiimo hooseeya nabadoonka kale ee ka dhashay beesha agooyar miyaynan dadku dad wada dhasho ahayn lamaanayaashii cabdalla caroone waxaa la yidhi waa looma ooyaan 70 jirkii nabadoonka ahaa waxaa la yidhi waa looma ooyaan kadibna waxaa la yidhi waa dulmi iyo qalad waana in wax laga qabtaa cabdalla caroone aargoosiga ay sameeyeen war haddii sharci la waayey war haddii dhaqan la waayey war haddii walaal ee arrintan ku soo baxaya la waayey maxaa diidaya in cabdalla caroone ay aargoostaan runta in laysku sheegaa muhiima dulmi cad oo shabeellada dhexe ka socda oo cabdalla caroone looga soo horjeedo ayaa la isku bahaysanaya cadaare waa dhul shabeellada dhexe ku yaalla reer baa iskale degan waxaa la yidhi cadale waxay noqon doontaa meel muhiim ah oo istaraatiijiyad ah sidaa darteed aan ka ciribtirno cabdalla caroone waxa la isku bahaysanayo shabeellada dhexe ka jiro waa taas aan ilaahay ka baqno markaad arkaysid cabdalla caroone lagu goobanayo dadka qaarkoodna loogu fasirayo dulmigaa ka batay qabiil walbay la dagaalamayaan war waa lagu goobanaya war in la nabaad guuriyaa la rabaa war in la tirtiraa la rabaa maanta miyaan eegtaa cabdalla caroone la rabo in laga tirtiro shabeellada dhexe maya abgaalow dad wada dhashay isku weera haddaad tihiin dulmigan in laga fiirsaday habboon tahay nabadoonno iyo siyaasiyiin baa galay garta cabdalla caroone iyo agooyar maxaa loo dhinac maray ma cabdalla caroonaa dhinac maray nabaddii oo burburiyey mise agooyaraa dhinac maray
nabadda waxaa dhinac maray oo dilka ku horreeyey waa agoyar cabdalla caroon way aargoosteen marka anigu waxaan rabaa labada dhinac dhimashadu way dhibaysaa laakiin xaqu meesha uu jiro weligay waa la jiri waana la jiri doonaa nabadda shabeellada dhexe haddii la rabo dulmiga ha laga daaya cabdalla caroon haddii la rabo wada noolaasho abgaal walaalayaal cabdalla caroon dhibkaa laga daaya war aniga anaa runta idiin sheegaya anaa xaqa idiin iftiiminaya ummadda soomaaliyeedna waan u sheegaya dagaalka shabeellada dhexe iyo ku goobashada cabdalla caroone aniga cabdullaahi balwaanaan ahay xaqa iskama indhatiro ixtiraam baan u hayaa nabadoonnada hawsha ku jiray iyo madaxweyne shariif sheekh axmed laakiin waa la dhinac maray maantana waad ujeedaa waxaa lagu leeyahay kuwii cabdalla caroone laga dilay ba'na maaha tacna maaha waa lagu ooyaan kuwii agooyar laga dilana qiimay leeyihin suurtagal maaha shacabweynaha soomaaliyeed waxaan leeyahay xaqaas inaanu dhammaanteen ka dhidhino waajibkana saaran waayo cabdalla caroone mid baan u sheegayaa nabadoon iyo nin dhalinyaro ah oo cabdalla caroone ka dhashay labadooda gadaasheeda ka muuqda dhalinyarada cabdalla caroone iyo nabadoonnadana waxaan u sheegayaa walaalayaalow run ma rabtaan la idinma rabo cabdalla caroone in laydan ciribtiraa la rabaa waxa la ysku bahaysanaya waa taas anigu runtaan idiin sheegayaa dal iyo dibad meel walba joogtaan gacmaha isqabsada haddii sharci la helo alxamdulilah haddii odayaal dhaqameedyo midnimada abgaal ay ka go-an tahay haddii la helana alxamdulilah haddii la waayo nin aan shantaada kaa reebin sharci kama rabo xaq kuma taagnidiin xaqaad ku taagan tihiin xaqdaro kuma taagnidiin dulmilow ma tihidee dulmidiin baa tahay sharcigaa qaba haddaad nabad weydo inaad adigu gacantaada ku raadsato waxaan leeyahay labada dhinac way dhibaysaa dhimashada walaalahay baad tihiin labadayda gacmoodaad tihiin walaalayaalow heshiiya dulmigana joojiya ceebaa dadkan walaalahay cabdalla caroone laga gardarayahayna waxaan leeyahay xaqa lagama gambadee xog baa loo sheegaa cabdalla caroone waa laga gardaraya waa laga gardaraya dulmilow maaha ee waa dulmidiin xaqayna ku taagan yihiin haddaad nabadda diideen maxaad uga qaylinaysaan aargoosashada nabaddii waaba diideene aargoosashada maxaad uga qaylinaysaan runtii lasku sheegaa muhiim ixtiraam madaxweyne shariif idinka waayey nabadoonnadii beesha ay idinka waayeen cabdalla caroone idinkama heliy madaxweyne shariifaad ceebayseen agooyalow madaxweyne shariifaad ceebayseen madaxweyne shariifaad ceebayseen nabadoonnadiinaan ceebayseen haddaad ku ixtiraami weyseen nabadoonnadiina iyo madaxweynihii ummadda soomaaliyeed oo idinkayda ka dhashay agooyar marka waxaan leeyahay xaqa aad ku taagantihiin walaalihii ku dilaysaan maxay tahay mar kale cabdalla caroone walaalayaal anigu garabkiina ah waa laydinka gardaran yahay waa la idiin tashtay shabeellada dhexena xasuuq idinka dhan ah ayaa ka socda maanka aamusi doona barnaamijkan mid lamid intaynu ku kulmi doono waa cabdullaahi balwaan wadila meel kasta waa joogtaan nabadgelyo